kulankan aqoon isweydaarsiga ee ku saabsan diyaarinta miisaaniyadda dowlad goboleedka galmudug sanadka 2018 ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimayaal ka kala tirsan wasaaradaha dowlad goboleedka aqoon-yahano iyo madaxda wasaaradda maaliyadda oo kulankan soo qaban qaabisay mas-uuliyiinta wasaaradaha galmudug ee ka qayb galay kulanka ayaa waxa ay ka doodeen jaangoynta miisaaniyadda dowlad goboleedka 2018 xilli maanta la horkeeyay baarlamaanka galmudug miisaaniyadda dowlad goboleedka sanadkan 2017 wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda galmudug maxamed axmed faarax oo ka hadlay furitaanka kulanka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay wadatashiga la gelinayo arrimaha qorsheynta dhaqaalaha maamulka runtii waqtigiina soo maray iyo waxyaalihii la soo qabtay baahiyo kiima darteed ayaa waxay kaliftay in la iskugu yimaado intaan diyaarinta miisaaniyadda la gelin hay-adaha kala duwan ee dawladda dad matalay si ay uga qayb qaataan miisaaniyadda diyaarinteeda ayna u noqoto miisaaniyaddaas ay diyaariyaan mid maangal ah runtii maantay haddii wasaaraddu idin soo diyaariso ama cid kale ay soo diyaariso miisaaniyadda waxaa laga yaabaa inaysan ahayn mid reality ka tarjumaysa haddaa idinka iska soo diyaarsataan gaar ahaan waxay noqon kartaa naftiina mid baahidiina kaliya ku salaysan aysan ahayn mid dhabta ka tarjumaysa saas darteed waxaan wasaaraddu qabanqaabisay iyo hay-adaha kale oo caawinaadda siiya in la qabto tababar ku saabsan sidii miisaaniyad hufan oo ka tarjumaysa galmudug shaqadeeda siyaasadeeda kuna qotonta waxa dhabta ah oo ay heli karto runtii galmudug in la diyaariyo ay isku kaliftay runtii miisaaniyadda muhiimadeeda iyo waxyaalaha leedahay shirka ayaa looga dhaxli doonaa laakiin guud ahaan waxay ka turjumaysaa shaqada dawladda haddii wasaaraduhu shaqaynayaan haddii hay'adaha kala dawladda ay shaqaynayaan haddii waxaas oo dhan runtii ka turjumaysaa waxa aan qaban doono galmudug 2018 inta lagu arki doonaa midda kale waxay ka qayb tahay siyaasadda dawladda haddii miisaaniyad lahayn wax laga qaban karo ma jiraan runtii waxay qayb ka tahay saboodka aad u baahan tahay inaad hesho maanta ayaa xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxaa la horgeeyay miisaaniyadda dowlad goboleedka ee 6 bilood ee ugu dambeysay sanadkan inay ku guda jirno ee 2017 waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda ay go'aan ka gaaraan maxamed maxamuud owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.